wiil aniga aan dhalay orodkayga aan ku soo tiir tacabeele oo indha iyo tiir iyo maxaa iyo habowlay ahay reerka dhanba dhabar u ahay oo aan ku noolanay ii shaqeynaa u maqnay raasmaalkayga ahay ayaa waxa lidii labadii bishii lamaad 2020kii waxa lagu dilay labada boonda asilooti oo labada boonda asilooti in ka dhaxla lagu dilay waxa dilay askar dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aabaha dhalay marxuum xasan maxamed muuse oo loo yaqaan xasan shaw ayaa ka hadlaya qaabka loo dilay wiilkiisa ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku dileen labada boonda asilooti ee degmada Waaberi labadii bishan Febraayo 2020 aabaha oo lagu magacaabo maxamed muuse maqani ayaa dawladda Soomaaliya ka codsaday in dadkii dilay ama ciidamadii dilay in sharciga loo soo istaajiyo oo helo cadaalad hadaladiisina waxa kamid ah sidoo الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم أنا محمد موسى مؤمن والله يقان محمد مقنينا نيستيستهاي وحنا هاي لبنياش الصومالي وكمد أنا هاي لبنياش بان كمد هاي وحنا يقدر الويل أنا على عرض كي أحب تير تعبالي وإن يتير محايا هبولي هاي غير كلام بفلور وهاي وأن كنا لنا إيش قينا ومقنا رأس مالكي هاي أيوة حلدي اللبادي بشي لمات لبكون إلى باتنكي وحلودي اللباد بوندا أسيلوتي ولا اللباد بوندا أسيلوتي كان حلا الودلي واحد دلي أسكر دولة سد عسكري بعد شيء سد هذه عسكري مركي دلين وأسكر عرّن وإحنا باكي مو كجري جيت كجام حتى مهن قدر الله وحي كهايت الله بيقان ضد وحي ليه مالك اللواي أنا صار على العقد ودي العقد يكون مرمسلات إسكي قربان ضد بعدها أنا ويل كاس واد دلين وحب صبح صدق وابري اسبطال تركيا جاين وبدا اقتاده ولا لا محا يردمير لا لا مش ميدكيس لقي ماشي waxay ahal ku maqleen wiilkaas waa dhintay hadii lagu baxay nimankii la yiraahdo baan dhacday nimankii yaa dilay liir anaga ma ogi bayraan waxa badan waa naga ordan bayraan hadii la yiri ilaa ay heer maxkamad sare ciidamada qalabka sida maanta aan ka nimid waxay noo direen qaybta baarista CID ay noo direen waa tagnay hadii aan tagnay waxay yiraahdeen waxba idin ma hayna wax hayno raadi ruux ma hayno war askartii meyd soo qaadi oo askartii ninka dishi xabadayshi kulleeba niba war hadii run la sheegay wal warama hadii niri adag war ma haysin ali xaq waxay wali meydka soo qaadaan anigu waa soo qaadi lahayn ninkii sargaalka meesha joogay maadaama uu nin dhinti yahay mas'uuliyad isaar arba soo qaadi askariga meyd soo qaadi war ma wax ma haysin meel aan ku soo farma haysin ayire sida darteed wiilkii oo isku turtur maxkamadda wax kama qaban CID ama baaris wax kama qaban ciidan baadii meesha baawur ciidan maray ku dilay lugtay ku socdeen kuwa soo qaadeen markii la sugay ciidamada dawladda meesha waa ku dhameed markii la yiraahdo qaybo kala duwan ninka waalidina waa la siga dhaqaaqay aniga dhibanaha saanahay wax iba maqna dalku wiilkiina waa maqan yahay sawirkiis waa kaas arkaysiin oo halkaas ku yar maskaxda foqsan tahay madaxiisa daasan tahay aniga dhibaatada ninkii waa dhintay muddo 10 maalmood ay soo noqleeyeen waxaan maqlay cadaalada laga hadlay maqlay haday jirto dawladda Soomaaliya haday cadaaladaas run ay tahay oo afka baarkiisa ahayn waxaan wiilkii baaris ilaa baar dadkii dilay waa yaqaan hadaa run la sheegay wixii ka waa baan wiilkii dadkii dilay waa yaqaanin dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa wiilkii dadkii dilay inay soo qabta xuquuqdiisa meel lagu raadiyo hadii cadaalad la sheegay ay jirto hadii afka baarkiisa taa Soomaaliya wax loo sheegay wax jir ay kala dhinayeen hadii waa gaar oo qodobadeed ay leedahay aniga warkii intaas baan soo gaabana wabillahi tawfiiq salaam alaykum